takbiir oo takbiiratul qiyaamka aysan ku jirin midda markii la istaagaya aysan ku jirin labada takbiir dhexdooda wax yar baa la aamusaa dikri in la aqriyaa sunna ah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar baa laleeyahay markaas allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kasiira وسبحان الله بكرة وأصيلا فأنا والله آخر كرا كواحير بالله أمصية ذكر جالسنا الغد واقيا باقيات صالحات لا سافر بدن وحاجرت عيدا أضحية وحليلة أضحية أما حقيقة وأضحية salaada markii la tukado kadib ayuu udxiyada waqtigeedu galayaa waxaan la gowrici karaa oo neefka markii la tukado un kadib maxaa yeele rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi awalu maa nabda fi hada alyawm an nusalliya uma narjic fananxar maalintan waxaan bilowna waxa ugu horeeya inaan kow tukano markaa kadib guryahan ku laabanaynaa gowracii baan samaynaynaa ka qofkii ku talagalay ama diyaarsaday salaada markii la tukada kadib ayaa la gowracayaa xoolaha waa sunno udxiyada waa sunno asalkeeduna waa fidihii lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil ilaahay uu ku amray nabiyullaahi ibraahim wiilkiisa inuu gowraco ru'yadii uu arkay ru'yatul anbiyaa waxyun wey ambiyada ru'yadooda waa waxyi markii ru'yada lagu amray wuu fuliyey laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala iraadadiisa iyo fadligiisa nabiyullaahi ismaaciil wan jannada laga keenay ayaa lagu furtay oo fida u noqday marka taa udxiyaday asal u tahay oo in la gowraco maaragtay la udxiyaysto neef la gowraco waa sunno hal neef oo ari ah adiga iyo qoyskaagu kugu filayahay ninka iyo qoyskiisa hal neef oo ari ah ku filan intuu doonaba qoyskiisu ha ahaado ama qoysas badan ha lahaado waa ku filan tahay qofku hadduu gowraco isaga iyo ehelkiisa udxiyada waa ku filan tahay neef geela iyo looda 7 qof ayaa ku udxiyaysan karta macnaheedu waa 7 qoys waay yani hadday isku darsadaan yaa udxiyo u noqon karta waxaan u malaynayaa dhulkeena waa iska ciriiri maanta oo kale xoolihii intii la diyaarsaday in saakoo kale la gowraco laakiin waxaa suurtageli karta maalmaha ka dambeeyo udxiyada waxaa la gowrici karaa 11 12 ilaa 13 maalinta ciida iyo 3 beri oo ka dambayso 4 maalmood oo ciid ayaamu tashriiq baa la yidhaha 3 beri oo ka dambayso 3 maalmood xoolihii waa la gowrici karaa ninkii maanta ay u suuroobeen berri iyo saa dambe iyo maalinta kasii dambayso haystaa 3 beri oo u gowrici karaa ka waa sunno qofkii awoodo inuu sameeyo waa sunno waa baraka wey asaga iyo ehelkiisa iyo ilmihiisa reerkiisa o dhan buu ka niyoonaya iyo intii uu ku daro oo niyada ku daro o dhan ba way gaaraysaa marka waa sunno in udxiyadana la sameeyo neefka udxiyada gaarayo ee neefka udxiyada gelayo ariga waa ida iyo riyo iduhu 1 sanay ku gaaraan udxiyada waa inuu sanad jiro neefka lagu udxaysanayo waa neef ilkaha ritay inuu yahay iduhu sanad bay ku ilka ritaan mararka qaarkood 6 bilood ayay ku gaaraan baa la yidhaha iduhu way kori ogyihiin laakiin sida u badan waa sanad riyaha iyo loodu waa 3 sano neef 3 sano gaaray maa lagu udxaysan karaa ilkaha intuu ritay inuu la soo baxa waa geeluna waa 5 sano geelu 5 sano ilkaa ku ritay
xoolaha lagu udxeysana waa saas. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan xaggan u diray oo maaragtay meelahaas Africa iyo baahidu ka jirta oo taana way suurtageli kartaa. haddaad qof aad yacni wakiilato oo aad tiraahdo neefkaas soo gad oo gowrac ood ehelkaagii adiga aad ka niyoto way ansaxaysaa, lana waa xoolo sadaqa ah wey. horey haddaad u samayn haddaba waa samayn kartaa, maanta iyo beri dambe iyo maalinta kasii dambaysaba waad haysataa, fursad baad haysataa in udxiyada la sameeyo. wax weyn maaha, kharash badan maaha. marka udxiyada insha Allah waa sunna, ha lagu dadaalo. udxiyada ha la sameeyo insha Allah. dhiigga la daadinayo iyo xoolaha hilibka la sadaqaynayo waa sunno fadiilo aad u fara badan bay leedahay. maalmahan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay maanta oo ciida iyo maalmaha ka dambeeya oo saddexda maalmooda ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi subxaanahu wa tacaala. waa maalmo wax la cuno oo wax la cabo, ilaahayna la xuso subxaanahu wa tacaala. macnaha maalmahan lama soomo, soonkuna ma ansaxayo. lama soomo maalmahan. maanta waa ciid, saddexda beri oo ka dambaysana waa ciid. intaba lama soomi karo, soonkeeduna ma ansaxayo. marka waa ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi subxaanahu wa tacaala. in dikriga ilaahay lagu dadaalo, cibaadada lagu dadaalo. insha Allah marka waanu tukanaynaa insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo.